السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشن قيمة له كسو دوادا باكاي ميديا برودكشن زينب ستوديو مقالة نيروبي أنيقنا وحنا يوسف آدن أو حيدن سو قدبين دونا ورئيسي قارة وعن مركزي قد كأولين ككوليلن دونو متكمده إيلكا الله نحرسته مرحوم قدوميه هره محيدين خليف عليو oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose Soomaaliya marka hore Faisal ku soo dhawo Baakay Media Production Zainab Studio magaalada Nairobi walaalkay waa ku dhawahay Baakay Media Production aadan u mahadsantihiin waqtigiina qiimaha badan ay siiseen sidoo kale mahadsanid Faisal Koleere waa qof ma iyo xiriirka kala dhaxeeya adi iyo Allah u naxariistay marxuum gudoomiye Muxidiin Khaliif Aliyo Faisal Koleere waa wiil Soomaaliyeed wiil Buulamareer ku dhashay ahna gudoomiyaha ururka horumarinta walaalaha Buulamareer ee Banaadir ilaa uu naxariistay marxuumka dhintay adeer Muxidiin wuxuu yahay adeerkayga laxmiga xiriirka naga dhaxay waa inta marka waayahay Faisal sidee ahayd shakhsiyada iyo akhlaaqda marxuumka marka aad si dhow u taqaanay runtii adeer ilaa uu naxariistay wuxuu ahaa qof ku suntan akhlaaq wanaagsan bulshada dhaqan afgaaban runtii aadna ugu nugul dadka aan tabarta badan lahayn wuxuuna cod u ahaa kuwa aan hadli karin waayahay goormee ayuu dhashay halkeese ku dhashay adeerku wuxuu dhashay toddobaadkii uu dhashay wuxuuna ku dhashay deegaan weynaha Buulamareer halkaas waxbarashadiisa ku soo qaatay ilaa iyo dugsiga sare halkii burburkii jaamacadii uu dhiganayay burburku ku dhacay guud ahaan waa nin ku dhashay Buulamareer asal ah deegaankaas oo ku dhashay waayahay sidee bay ahayd noloshiisa caruurnimo iyo akhlaaqdiisa goormee ayuu markaasi ku soo biiray maamulka degmada Kurtunwaarey ee fadhigiisuna ahaa magaalada Buulamareer aad u maasan tahay adeer markii laga hadlayo ab dhaqankiisa caruurnimo inkastoo waalid noo ahaa laakiin sida hadda aanu ku naqaanay ama aanu ku aragnay waa nin ixtiraam badan dadkana aad u tixgeliya dadka u dhow kuwa ehel wanaag ay yihiin kuwa isla dhaqmayaan baxdii markaas waxbarashadiisa kula jiraan iyo qof u dhimriya kuwa aanan tabarta lahayn wuxuuna ku soo biiray adeer dhamaadkii 2015 uu ku soo biiray maamulka Kurtunwaarey fadhigiisa ahaa Buulamareer ilaa iyo hadda lagu jiro 2026 uu hadda dhintay ayuu ku jiray maamulkaasi waayahay maxaa ku dhiirigeliyay inuu ka shaqeeyo adeega bulshada ka hor inta uusan markaasi noqon gudoomiye ku xigeen ma jireen xilal kale oo hore u soo qabtay walaalkay aad u maasan tahay guud ahaan markii Buulamareer la joogo reer Khaliif Aliyo waxay yihiin dad inta badan u suntan inay u shaqeeyaan bulshadooda maadaama adeerna uu ka mid yahay farci reer Khaliif Aliyo horena ay u ahaayeen dad markaas ku suntan haddana ay yihiin dad ku suntan inay u shaqeeyaan dadka deegaankooda ah adeer wuxuu ahaa nin ku suntan in uu dhaxalkii aabihiisa ka tagay inuu ka shaqeeyo taasoo inuu u adeego bulshadii uu ku dhex jiray marka waa nin noocaasi waxaan ku dhiirigeliyay waxay ahayd waa nin markaasi bulsho ah samafal ka shaqeyn jiray inta badan dadkana u dhimrin jiray su'aasha kale hadaan u soo laabto xilal kale uu soo qabtay way jiraan adeer waa nin inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada wuxuuna ka soo shaqeeyay hay'ado badan u soo shaqeeyay NGO ay u badan yihiin intuusan xilkaani maamulka uusan qabanin Kurtunwaarey wuxuu inta badan lagu yaqaanay inuu dadka samafalka ahaan u shaqeeyo NGO-yada ay kamid tahay hay'adda ay kamid tahay African Muslim Agency AMA oo markaas inta badan ay ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadanimada oo inta badan ka shaqeynayay iyo inta badan wuxuu ka shaqeynayay abaarahii barakacyadii dadkii inuu markaas u sameeyo inay soo laabtaan si lamid ah inuu deegaano u sameeyo waa nin markaas bulshada arrimaha bulshada aad ugu xildheeraa oo ku shaqeyn jiray Faisal sidee ayay bulshada Buulamareer u arki jirtay shaqadiisa maxay ahaayeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ka qabtay magaalada Buulamareer adeer bulshada reer Buulamareer wuxuu ahaa laf dhabar mid mar walbana u damqada dadka deegaanka haday noqon lahayd inuu ka fikiro horumarkooda haday noqon lahayd inuu ka shaqeeyo wax walba oo dan u ah reer Buulamareer runtii dhimashadiisana aad ay noo damqisay anaga kaliya nama damqinay waxay damqisay dhammaan bulshooyinka reer Buulamareer waayo wuxuu ahaa qof dadka anfaca nabiga cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay kiina ugu fiican waxa way midka dadka anfaca adeerna wuxuu ahaa mid ku suntan in dadkii deegaankiisa markaas anfacayay haday noqon lahayd yar iyo weyn bahwaliba haday noqon lahayd bahwaliba markaas caafimaad ka noqoto waxbarasho ka noqoto sports ka noqoto
nin mar walba wuxuu u ahaa haldoor u ah saa ogtahay haldoorada inta badan ma raagaan runtii nin ku suntan u ahaa dabeecadahaas markaa beer waayahay ma jira horumar ama dadaal gaar ah oo lagu xasuusan karo sidee ayuu markaasi ula dhaqmi jiray shacabka iyo dhalinyarada degmada Buulamareer arrimo badan lagu xasuusan jiray way jirtaa adeer inta badan wuxuu ka shaqeyn jiray arrimaha samafalka sidaan hore kuugu sheegay waxyaabaha inta badan lagu xasuusanayo waxay tahay howlihii ugu dambeeyay uu qabtay taasoo ay kamid ahayd inuu taageeray bulshada dhalinyarada sportiga inuu taageeray inuu ka shaqeeyay in dib dayactir lagu sameeyo suuqii weynaa reer Buulamareer markaasi burbur xoogan ku samaysnaa dadka inta badan ay banaanada ay qodan jireen adeegyadooda haddana qolay suuq qudaarta waxyaalaha kale ee lagu xasuusto waxaa kamid ah in Buulamareer markii ugu horeysay ay yeelatay leerarka ku shaqeeya cadceedda ama qoraxda in uu qayb ka ahaa dadkii ka shaqeeyay arrimahaas in Buulamareer yeelato leerarka ku shaqeeyo qoraxda markaasina deegaanka si ay u soo saarto bilicdiisa marka ay timaado dhalinyarada iyo hoggaanka markaas odayaashana wuxuu u ahaa haldoor oo inta badan kala shaqeeya wax walba ay jecel yihiin haddii noqoleed sportiga wuxuu inta badan awood iyo xeelad uu siin jiray dhalinyarada uu taageeri jiray waxyaabaha ay u baahan markaasi haddii noqoleed sportiga inuu ku taageero qalab sport inuu siiyo garoomadooda in markaasi loo sameeyo si lamid ah waxa ugu weyn oo ah in amniga markaasi ay ku ciyaari lahaayeen in laga shaqeeyo waa tahay Faysal Allah u naxariistay marxuum gudoomiye Muxiidiin Khaliif Caliyow muddo intee la eg ayuu ku noolaa magaalada Buulamareer sidee ay markaasi bulshada deegaanka uga falceliyeen markii ay markaasi maqleen geeridiisa adeerka Buulamareer uu ku dhashay reer Buulamareer oo asal ah way deegaan waaye intiisa badan cimrigiisa inta ugu badan xaq uu ku soo qaatay ilaa iyo xogaa yar mooyo magaalada Xamar uu ka shaqeynayay laakiin inta badan waqtigiisa wuxuu ku soo qaatay magaaladiisa uu ku dhashay Buulamareer runtii geeridiisa anay kaliya ma damqinin si oo milgale oo waliba oo la dareemi karo qof macquul ah inuu ka tagay waxa laga dareemayaa reer Buulamareer yar iyo weykooda waxayna markaasi muujinaysaa inuu ah qof hogaamiye markaasi dhimrin badan dadkan uu naxariisan jiray dadkan waxay ugu falceliyeen si baroordiiq daran ay ugu falceliyeen waayo waxaa lumay qof markaasi cod u ahaa qof markaasi haldoor u ahaa qof markaasi u shaqayn jiray la damqan jiray la dareen ahaa xaalad walba ay ku sugayeen fahmi jiray marka reer Buulamareer dhammaan iyo bulshadeynta Soomaaliyeedna waxay u noqotay arin murugo badan naxdin badan marka laga soo tago reer Khaliif Caliyow waa tahay Faysal ka Faysal ahaan maxaad ka ogtahay dhacdadii daraad ka dhacday magaalada Buulamareer ee markaas lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyaha hore Muxiidiin Khaliif Caliyow walaalkii aad u maasan tahay ani horta magaaladii ma joogo laakiin se waana ka fogahay meel fogaan hadda joogaa laakiin waxa aan ka ogahay waxay tahay waxa la qofku wanaagsan ma raago Soomaalida inta badan haldoorkooda way lumiyaan ninka wanaagsan inta badan adduunyada ku ka waaro adeer wuxuu sababsaday gacan ka xaq daran markaasi loo tuhmay wax walba laakiin se adeer wuxuu arintan ay ku dhacdo waxay ahayd arin markaasi aad noo gilgishay xanuun badan lagu riday asigana ay khayr ugu jirto waayo waqtigiisa xaq ku soo dhamaaday wuxuuna dhintay bil khayr badan waliba 10 dambe ugu dambeeyay adeer shahiidu noqday uu shahiiday ilaahay ka aqbalo shahaadnimadiisa ilaahayna waxaan weydiinaynaa in gacanta ka xaq darneedna ilaahayna inuu soo saaro maalinta qiyaamo soo saari doono runtii arintii maalinta talaadada ay ka dhacday Buulamareer ma ayna arin qurux badan arin waxay ahayd deegaanka oo dhan iyo deegaanada ku hareeraysan dhan aad u muujisay waayahay maxay ahaayeen sifooyinka ugu muhiimsan ee lagu xasuusan doono ex gudoomiye Muxiidiin Khaliif Caliyow maxaad markaasi fariin u diraysaa shacabka Buulamareer iyo guud ahaan shacabka gobolka Shabeellaha Hoose aad u maasantahay Yuusuf sifooyinkii ugu muhiimsanaa ee lagu xasuusan doono adeerkeena qaaliga ahaa Muxiidiin Khaliif Caliyow gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Kuntuwaarey waxay ahaayeen nin hogaaminta ku fiican bulshada u shaqeeya cod u ah u dhimriya la dareen ah inta badan dadka taagta daran dadkaan hadli karin u hadli karo cod weyn u ahaa saaxiib la ahaa la murgi jiray xaalad walba la soo gudbinaatay qof la dareemi jiray ayuu ahaa reer Buulamareer waxaan u dirayaa fariintaan u dirayaa waxay ahayd ilaahay guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxa idinka tagay qof qiimo badan haliyay baa idinka tagay laakiin taas macnaheedu ma ahan in halgankii iyo in dadaaladii deegaankii laga wada inuu istaagi doono insha Allah waxaan leeyahay sabra ilaahay idin la jiro
bedel khayr qaban waxay liisin aduu Allah insha Allah waayahay Faisal adiga ahaan maanta marka dib u xasuusato marxuum Muxiidiin Khaliif Caliyow maxay tahay xusuusta ugu dambaysa ama hadal uu markaasi ku sheegay oo wali qalbigaagii oo saameyn weyn ku yeeshtay aad u maasan tahay adeerkayga Ilaahay u naxariistay aniga saaxiibo dhawaan ahayn inta geeridiisa ay iimaanin ka hor laba maalin ka hor asla hadalnay waxaan iskala hadli jirnay arrimaha familka qof saaxiibo isku dhow maanta sheekaysta labadeena ahayn arrimaha deegaanka iyo arrimaha markaasi familkan ku hadli jirnay marka adeer hadda hadaladiisa aan dib u xasuusto waxa kamid ah wuxuu inta badan igu dardaarmi jiray in aan noqdo qof dadka anfaca dadka u adeega shacabkiisu adeega dhaxalkii uu ka tagay awowgeena in mar walba ilaalino kaasoo ah in bulshada loo shaqeeyo deegaanka nooc walba ha noqoto nooc walba hal kulma in la shaqeeyo أنا لو جوجنا عقود بالبو ديجان كوسو وجهه مركز مرشقين. ويا فيصل دنكان يبولشة بولمرير حدي ما أنت شعبك بولمرير يوجود أهان قبل كشبلها هوسة أي هالفريق اللي يسال لهاين الله نحرسته مرحوم قدومية هراء محيدين خليف عليو ما حيكون هاي إنه أوران لها. فرينت وحين نقول لحد غير بولمرير إذن كان ديجان كنا له إلى الشدة قستا إذن كان مر والبدأ سقاه كينو سكودو سكودي مريا سكون حريستا waxa ugu muhiimsan waxay tahay deegaankiina cid kale u maqan malahan idinka joogo idinkaanan markaas la idinka rabaa inaad dhisataan isku duubnaada weligiinaba waayahay ugu dambeyn maxaad alle uga baryaysaa marxuumka maxaa safariin ah oo aad markaasi u diraysaa qoyskiisa iyo dadka uu markaasi ka tagay aad u mahadsan tahay ugu dambeynta adeerkayga ilaahay waxaan leeyahay ilaahay ka raali noqdo qabrigaaga waasic ilaahay kaaga dhigo tobankii dambe ramadaan lagu jiraa xilli khayr badan aad dhimatay ajisha sameeyay ku ekay anagana xanuunkii iyo ehelkiisa daana xanuunkiisa iyo geeridii naxdinta badneed waxaan leenahay ilaahay samir hanaga siiyo adeerna wuxuu noqday qof shahiid ah markaasi ilaahay uu doortay in uu adduunyada fidnadeeda ka fogaado adduunyada sawadugna waa fidna waaye qofkii dhintaa markaasi fidnadaas ay ka haraysaa adeer waxaan leenahay ilaahay qabrigaaga waasic ilaahay ka dhigo waana ku soo duceynaa xil walbo qalbiyadeena waa ku nooshahay haddaad dhimatay maahan in halgankaagi iyo dugsiga leed inuu istaagayo qalbiyadeena ku nooshahay haddaan nahay reer Khaliif Caliyow si la mid ah reer Buulmarena weligooda qalbiyadooda ku noolaan doonta insha Allah fariinta aan u dirayo qoyskayga waxa waaye sabra ilaahay baa idin jira insha Allah waad mahadsantahay Faisal kaasi wuxuu ahaa Faisal Kuleere Caliyow oo kamid ah ehelka Allah u naxariistay marxuum Muxiidiin Khaliif Caliyow oo daraad daweed lagu dilay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose aniguna waxaan ahay Yusuf Aadan Baakaay Media Production Zainab Studio magaalada Nairobi fi amanillah